Asalaamu calaykum daawade. Maanta waxaan faaqidi doonaa qaybihii xisaabaadka, gaar ahaan waxaan ka bilaabi doonaa equations islaagyo ama mucaadalaad faahfaahin doonaa saddexda nooc ee equationka oo kala ah first degree oo loo yaqaan linear equation, iyo second degree oo loo yaqaan quadratic equation, iyo third degree oo loo yaqaan cubical. 4 iyo 5 way jiraan, laakiin saddexdana si faahfaahsan u falanqeyn doonaa. Linear and first degree waxaan dhihi karnaa marka uu jibaarkeedu uu yahay 1, x ka ku jibaaraya 1 waxaa leenahay waa first degree. xeer ahaan waxaa loo qoraa ax plus b equal c. aan idin xasuusiyo waxa u socona waxay tahay problems of linear equation sidaan ugu shaqeynaa. Soo qaadana tusaalaha koowaad. Cali wuxuu 2 sano ka weyn yahay Jaamac. Haddii wadarta daadooda ay tahay 14 sano, waa imisa daada cunug waliba? Waayahay, waxaa la siiyay 2 qofood oo kala ah Jaamac iyo Cali iyo wadartooda. Cali daad u jira ma aqaano, Jaamacna daad u jira ma aqaano. Laakiin waxaa aqaana la sheegay haddii labadooda la isku daro waxaa la yidhi 14 waay. Waxaana sidoo kale la sheegay in Cali uu weyn yahay 2 sano. Marka maadaama kan 2 sano uu weyn yahay kan aan ka seenin, macnaheedu waxa waa kan daadiiso lagu daray ayuu kan jiraa. Marka kan ma aqaan waxa la maadaama kan aan ka seenin waxa qaadanaya x, kan kalena waxa qaadan doona x plus 2. marka intaan haddii la isku daro waxa kulmin noqota 14. aan u dhisna marka equation waxa leena marka x plus 2 equal 14. waayo labadan aan x iyo x isku dari doona waxay noqon doontaa waa 2x equal aan leeyahay 2dan soo wareeji inta waxa ay taal 14, tan hadda soo wareejiso waxay qaadan doontaa minus inta waxay ku saar doonto 2x equal aan leeyahay labadan kala jar waxa soo ari doonto waa 12. ana waxa u baahanahay x san x weel meel waxa qaybinaya 2 intan waxa qaybinaya 2 labadan 2 waa isla bixi doonaan x equal aan leeyahay 12 labo qaybi waa 6. haddaba waxaan soo saaray x ya iska lahaa aan isweydiina aan dib u laabto x waxaa lahaa Jaamac, saa darteed waxaan leeyahay hence haddaba Jaamac da'diisu waa 6 years. yaa ii dhiman waxay dhiman Cali waxaan ogahay inuu yahay x oo lagu daray 2, saa darteed waxaa leeyahay x oo lagu daray 2 waxaa iska leh Cali. saa darteed x Jaamac meequu jira waa 6 oo lagu daray 2, saa darteed 6 lagu dar waa 8, 8dan waxaa iska leh Alin wuxuu jiraa 8. Alin wuxuu jiraa waa 8 years. haddaba haddaan rabo inaan hubiyo waxaan ku hubin karaa intaan leeyahay x ku la mid tahay inta waa 6 oo lagu daray 6 waa 12 lagu sii dar 14. marka equation ka sax ayuu noqon doonaa waana daada la raadinayo labada da oo kala ah Jaamac oo jiro 6 sano iyo Cali oo jiro 8 sano. marka intaas ayaa raadinayna. tusaalaha labaad. culayska Cabdi waa labalabka kan wiilkiis. haddii wadarta culayskeedu uu yahay 102, waa imisa culayska mid waliba? waayo tusaalaha nala siiyey waxaa ku xusan in uu yahay Cabdi iyo wiilkiisa. marka sidaa darteed waxaan leenahay dadka lii siiyey waxaa ka mid ah Cabdi iyo Soon oo cunugiisa ah iyo Sam wadartooda ah. wadarta culeysyadooda inta ay jiraan culayskooda miisaankooda waxaa waaye 102 waa wadartooda kilogram. marka Cabdiga ayaa wuxuu yahay labalaabka kan wiilkiis. kan wiilkiis ma aqaana marka waa 2 lagu dhuftay waa 2 lagu dhuftay kan wiilkiis ma aqaana maadaama aan ka seen wiilka waxaan leeyahay x u qaado Cabdi wuxuuna mid noqon doonaa waa 2x. saa darteed inta haddii la isku daro intaas ay keeni doontaa. waxaan filayaa haddii equationka saan loo dhisay inay fududaan doonto. waxaan leenahay waa 2x plus x equal 102 kilogram. waa isku darsamayaan waxay noqon doontaa waa 3x waa 3x equal aan leeyahay waa 102. meel walba 3 u qaybi intana 3 u qaybi. okay 103 iyo 3 la bixi doonaan x equal aan leeyahay 102 haddii 3 loo qaybiyo waxaa soo bixi doonto 34 kilogram. marka
x yaa lahaa x waxaa lahaa son marka cunuga abdison wiilka cunuga cabdi uu dhalay wuxuu noqon doonaa 34 kilogram marka aabaha meequu noqon doonaa cabdi wuxuu noqon doonaa 2x waa 2 lagu dhuftay x maxaa haystaa 34 kilogram marka waa 30 cabdi wuxuu kula mid noqon doonaa 34 hadii laba ku dhufato waa 68 kilogram haddaba cabdina waa 30 cabdi waxaa waaye 68 wiilkana waxaa waaye 34 kilogram